hay-adda Qatar Charity ayaa 150 booyadood oo biyo ah soo gaarsiisay dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan Somaliland gaar ahaan deegaanada fogfog ee biyo la'aantu ka jirto ee gobolada Togdheer, Sool iyo Sanaaga. Barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaa hay-adda Qatar Charity ka gudoomay 60 booyadood oo kamid ah biyahaasi. Cabdi Fataax Mira Faarax oo wakiil ka ah hay-adda Qatar Charity ayaa ugu horeyn ka warbixiyay biyaha ay soo gaarsiiyeen dadka abaaraysan. waxaanu halkan soo gaarsiinay ka bacdi markii ay ka bilaabantay nala soo gudbiyay aan xukuumadda ka helay xogta abaaraha ee dalka guud ahaan ka jira annagoo ah hay'adda Qatar Charity waxaanu ka jawaabnay si degdeg ah uga jawaabnay baahida naga soo gaadhay xukuumadda waxaanuna soo gaarsiinay 150 booyadood oo aan ugu talagalay gobolada bariga ee abaaruhu saameeyeen biyo la'aantu ka jirto dhulkeeda fogfog 60 ka mid oo aanu maanta ku daafurayno magaalada Burco ayaanu ka bilownay oo ka sii deynay inta kale annagoo gaarsiin doona insha Allah tacaala gobolada Sool iyo Sanaag oo meelaha fogfog ee oomanaha iyo baahidu ka jirta ay tahay hay'adda Qatar Charity mar walba waxay u taagan tahay inay taageerto dadka jilicsan. Barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi iyo gudoomiyaha ka hortagga aafooyinka ee gobolka Dhaamis Maxamed Jaamac oo la wareegay biyahaasi ayaa si weyn ugu mahadceliyay hay'adda Qatar Charity. maanta waxaan halkan maaragtay ka gudoomeynaa hay'adda Qatar Charity 60 booyadood oo biyo ah oo waxna xalay la diray qaybtii labaadna ay halkan tahay 60 ka booyadood oo aanu ku adrees gareynay ama aan u qaybinay 30 tuulo oo kamid ah tuulooyinka gobolka oo ahaa 30kii tuulo ee ay ugu sii darhayd biyo la'aantu iyadoo guud ahaan gobolka biyo la'aantu 75 ama 80 ba ay gaadhayso waxaanu hormarinay runtii aanu ka fuuliyay 30kii tuulo ee maaragtay ugu sii darnaa oo iyaga waxa weeyaan aan helin runtii roobkii deyrta aan helin runtii waxa weeyaan waxa qadeeqdan ina siisay hay'adda Qatar Charity waan ugu mahadnaqaynaa runtii mas'uuliyadda hay'addaas hadday tahay mas'uuliyadda halkan gudaha Somaliland joogta iyo hadday tahay mas'uuliyadda kale ee dooxa Qatar joogta lacagtaba soo bixiyay waxaan kaloo halkan ugu mahadnaqaynaa guddida abaaraha ka hortagga abaaraha iyo aafooyinka ka hortagga uu gudoomiyay madaxweynaha ku-xigeenka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo iyaguna isu ka soo dhaafiyay ka filaynaa hay'adda Qatar Charity inaanay noqon 60 ka booyadood kuwii ugu dambeeyay ee ay runtii nagala qayb qaataan ilaa iyo inta raxmadda Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu inoo shubayo aad iyo aad baan maanta idinku mahadnaqaynaa tan ugu horeysa barka biyo Dhaamiskan oo hay'adda Qatar Charity loogu ballan qaaday ay soo dhaafiyeen taasoo aan ugu talagalay annaga iyo madaxda gobolku dhulka ugu liita ugu daran ee dayrtii aanay helin way magacaygu Aadan Salmaan Xaaji Axmed baa weeye waxa hadaa la ka dhigay Ilaahay baa mahadle Ilaahay baan u mahadnaqaynaa waxaanu hadaa la ka dhigay kala mahad celinaynaa hay'adda Qatar Charity oo soo gaarsiisay galabta biyaha si wanaagsan loo wixii joogay u cabeen waxa kale ay ku sugayaan Xabiib Ciga Xasan Universal TV magaalada Burco.